maalinta weyn oo aasaaska ah ururkii dhalinyarada aasaaskiisii oo laga joogo 74 sano maanta oo ah runtii maalin weyn aasaaskaas oo runtii idibada u dhigay midnimada Soomaaliyeed iyo qarnimada Soomaaliyeed iyo xorriyadda Soomaaliyeed SYL waxa weeye ururkii siyaasadeed ee soo dedejiyay ay ku keenan qarannimo ay uga fogaadaan qabiilka iyo qabyaaladda runtii arintaasi iyo halkankaasi ummadda Soomaaliyeed waxay ku soo caana ku heshay ama ku barwaaqay ku jirtay muddo 30 sano ah oo aan caalamka aan ka ahayn wadamada runtii ugu fircoon khaasatan Afrika taasi ay maxaan ku raahdaa ururkaas SYL-ka ah halkankaas ay ka soo gaareen inay ku keenaan xorriyadda waxa weeye maanta way taagan tahay inaan wax badan ka baranno hadduu Ilaahay yiraahdo maxaa yeelay waxay ka tageen qabiil waxay ka tageen xaqjir diineed waxay u soo bambaxeen ama banaanka soo dhigeen wadannimo wax la yiraahdo iyo patriotism taasoo runtii Soomaali midaysay oo walaalaysay oo u samaysay calan iyo qaran adduunka laga ictiraafsan yahay maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna waa u hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo maxaan ku raahdaa ururkii SYL hawshii ay qabteen Allah naxariistii jannadii siiyo 13 dhalinyaro hawshii ay soo qabteen annagana insha Allah waa ku dayareynaa hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan maanta ugu hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed
waxaan ku baraarujinayaa ka codsanayaa farayaa ku dhiirigelinayaa inay meesha ay dhigeen dhallinyaradii aswayaal ay dhigeen oo kaga tageen qorituurka kaga tageen in weli talo ku baraarujinayaa inay ka qaadaan waan farayaa inay si wadaan ku dhiirigelinayaa waxaan ku soo gudbinaa ka gabay la yiraahdo halgan maadaama kuwaas ay halgamayeen maxaa maanta la gudboon halgan baan la gudboon waliba kooda ay soo maray ka xunbaa in hor yaala maanta haddana dhalin Soomaaliyeed wuxuu ku bilaabay gabaygan halgan ah hawraarta gabay waayadan kuma haboonayne mahoolado wargeysyada waxay hatuf qorayaane inkastoo ay haboonay waxay hore ka sheeganba bulshada huruudaba waxaan lahaa hoos wax ugu sheegay bulshada huruudaba waxaan lahaa hoos wax ugu sheegay halgan baan ku jiray waayadan oo hawlayaan wadaaye hashiilayga dhacay waa horaan haybinahayaaye u hoggaami baan waxaan lahaa sidii ugu haboonayde habaqlahaa dadkaygaan lahaa hogasha gaadhsiiye hadkiyo dugaaga cunaan hoy kale ahaaye bulshada huruudaba waxaan lahaa hoos wax ugu sheegay hoggaankiyo waxgaradkaan lahaa hadal daareensiiye hoggaankiyo waxgaradkaan lahaa hadal daareensiiye halistuu qabiil lagu hayalaa way hortaagayaane hoyaadiyo saqiirkaan lahaa hawsha ka hor joogay halgankii adduunyada ka jiray tan iyo habiilba halgankii axmed guray gale gusha lagu habtay oo wali halkiisii yaban haybi leeyahaye